haddaad adiga qadaro waxaas aa samaysay diyuus ayaa tahay xaaskaaga iska daayay war gabar Soomaaliyeed oo islaam ah wax ay kugu aamintay jacayl iyo galgacayl ay kugu aamintay inaad ka faafisid ama banaanka aad ka dhigtid waa 100% wax aad qalad ku mudan tahay oo haddii run ay noqotona maxkamadeeda lagu marsiinayo haddii taas kugu soo cadaato ee run ay noqoto run ahaantii maxkamadeeda ayaa lagu marsiinaya Soomaaliya oo dhan gees ayay ka Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waani salaamay walaalahayga qaaliga adduunka meel walba aad ka joogtaan waa walaashin iqtisaad oo nidhayso isku soo noqod wanaagsan mar kale ayaa isku soo laabanay aniga oo caafimaad qaba alxamdulillah waxaan rajeynayaa idinkan in ay caafimaad qabtaan maalin kale jawi kale qurux badan alxamdulillah ilaahay ayaa mahadaasna u sugnaatay alxamdulillah waxaan rajeynayaa idinkoo caafimaad qabtina inay daawo doontaan oo comment qurux badan ay soo qori doontaan insha Allah hadaa janaalkayga ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa si walaaltinimo ku jirto inaad subscribe ii saartid like-na ii saartid like-tu waa noo muhiim videogayga markasta waan ku celinayaa viewskayga iyo like-teeda isma laha wax shaqo iyo shaqo isku leh ma aha like-ta noogu dadaala please marba waa soo gashay like-ta adoo walaasha u saarana ha sii soconin insha Allah waxyaabo badan ayaa naga caawinaysa like-ta anigana farxad ayay ii tahay inta sadaan salaanta uga soo gudubno waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo ama cawada maqrib ayaa la dhaafaaday cisho camal iska dheh waxaan rabaa inaan ka hadlo insha Allah walaashay Fihima oo cabanayso waxyaabaha ay ka cabanayso aan niiga hor dhicin waan ii shidayaa ila daawada insha Allah rahmatullahi wa barakatuh walaalahay Soomaaliyeed meel walba joogtaan waa idin salaamayaa walaashii Fihima waaye waxaan u soo galay oo maanta mar labaad aan u soo galay waxay tahay arrin aan ka naxay baa la ii soo sheegay arrin aan ku farxin baa la ii soo sheegay wa alxamdulillah ala kulli xaal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un gabadha run ahaantii qalbada ayaa jaban sida qof tacsi u taalo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ayaa dhahaysaa run ahaantii aad ayaa xanuunkaas ula dareemay laakiin shisaala waa ku sii soconaynaa walaalahay qaali waxaan ka codsanayaa waxa la yiri musawir aniga aan leeyahay oo qaawan oo website ku jira oo social media wareegaya waana musawir aniga ninkii qabay gacantiisa aan ku ogaa aan 2 sano ay qabay 2 sano ila noolaa aan gacantiisa ku ogaa oo gacantiisa ku sugnaayeen marka walaal 2 sano afka ayaa kaga dhacay 5 sano ayay isqabeen videoga markuu sii socdo ayay sheegaysaa wiilka aan intaas oo sano isqabnay oo abaalka badan aan u galay sawir aniga aan ku amaanaystay oo aan ku qarsaday ayuu iga faafiyay ayay leedahay insha Allah waan ku sii soconaynaa قال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون والله وذكر عليك لنا وحد كقبن كرتان كقبته وحي عاد كسمين كرتان كسمية وحي عاد ولا شيء كعاون كرتان كعاوية والله قال وحد كعد صنايع ويب سايت كانوا مأكل للشيء جاي قفك جرناية قفك يقام سيلون ربوت جراي إنه يعاوي ولا شيء قال مصور هذا سماش الله بصاره waxa walba ilaahay ugu dhacay kun sano ka weeyeen waana qadar ilaahay waayo waan ka raadi galnaa 100% waxa aan awood u leeyahay ma aha waxa aan joojin karo ma aha waxa aan filanayo ma aha waan ka shakisanahay inay dhici doonto waxa aan ka shakisanahay ahaayeen oo aan sugaayay inay dhici doonaan laakiin alxamdulillah ala kulli xaal anigu noloshayda sida hadda u socoto u bay u soconaysaa waxba kama qaban karo waxaan awood u lahayn oo qof aan aaminay u faafiyay waxa aan ka qaban karo ma jiraan sharci ahaan wadanka aan joogo wixii aan ka qaban karo oo xukumi kara ma jiro oo aniga xumaan la xumaynayo daraadeed musawiradeed iyo videoga ninkii qabay aan ku aaminay dibadda soo dhigay waxa anigu nolosheeda wax ka bedeli mayso waxba nolosheeda ka bedeli mayso waxaan rabaa inaan ka dhaho maxaa la dhahaa gabadhaani horta ilaahay ayaa garanayo wixii runta ah iyo meesha runta ay ka jirto ma fahanteen iyadana way hadashay
oo saanay u hadlaysaa ilama aha qof aanan xumaan laga faafinin ama wax xun meel ka oolin intuu soo fariisto inuu dhahayo sabro xun ayaa laga bixiyay yacni laga faafiyay oo adduunka lagu faafiyay walaalkii qadarna waa dhageystay oo waxaa wareysteen quruxda qoyska cabdullaahi halkan ayaa ka salaamaya isaga ayaa wareystay isagana uu dhaaranaya wuxuu dhahay qof islaama ayaan ahay waxaasi wax u dhow igama suurtoodo marka ilaahay unbaa garanayo meesha qaladka ka jirtay salaada iska xiri la-dahay laakiinse haddaad adiga qadaro waxaas aa samaysay diyuus ayaa tahay xaaskaaga iska daayay war gabar soomaaliyeed oo islaam ah wax ay kugu aamintay jaceyl iyo galgaceyl ay kugu aamintay inaad ka faafisid ama banaanka aad ka dhigtid waa 100% wax aad qalad ku mudan tahay oo haddee run ee noqotona maxkamadeeda lagu marsiinayo haddee taas kugu soo cadaato ee run ee noqoto run ahaanta maxkamadeeda ayaa lagu marsiinaya Soomaaliya oo dhan gees ayay ka istaagaysaa in qaabtaasna adiga ayaa maraysid sababtoo qoftan xaaskaaga ayay ahayd horumar ayay ku gaarsiisay maanta Afrika iyo qurunkeeda ayay ka soo kaxeysay nin la yaqaan adoo cidna ku aqoonin nin la yaqaan ka dhigtay ma fahmaysaa meel ayay ku soo istaajisay mujtamac ayaa ka dhex muuqatay cid ku kasayso ma laha ma fahmaysaa meesha joogto ama gaalkacyaha noqoto ama meesha noqotaba aad ciyaalka xaafada ku aheed hadana qadar ayaa taho Soomaali Maxamed oo dhan ku taqaano inaa u shukrisid waay not inaad sabro qaawan war xataa hadee ku qasho ee ku disho waxa doonto kugu sameeyso ma aha inaad sabir qaawan ama sabir qorteeda qaawan yahay iska daay inaad soo dhigtid ma aha ooridaada ayay aheed ma fahmaysaa xalaal ayaad ku qabtay xalaashiis xumay xaggaara u dambeeyo hadda aslan xalaashaadi ma aha laakiin sideedaba gabar Soomaaliyeed waaye qof horumarkaaga ka taliyo waaye qof ku wanaajiyo waaye inaad yani waxyaabaha qaarkooda subxaanallah aniga xataa ma hubin laakiinse maxamed buskud ayaa soo daawaday isagana waxaanan aniga soo xaqiiqsanin oo youtuberada waaweyn aanan kasoo arkin lamaba imaa laheenin oo kaamira kuma shida laheen aniga maxamed buskud wuxuu dhahay 2 bilood ka hor miya adiga ayaan daawaday ayuu dhahay waxaan arkay video ma aha laakiin googlaha ayaa waxaan ka arkay sawir oo gabadhan oo qaawan وانا حيو ده وحان اسدهاي maxaa qaldan qofti qof marwo yani qof mas'uul ay ahayd gabadha maxaa ku dhacay waa fahmay inay qalad jirto ayuu dhahay marka yani taas waxay cadeynaysaa inay sawirka ay sheegayso oo qaaban gabadhan run ee tahay laakiin ilaahay baa garanaya inuu qadar yani faafiyay iyo inuu qof kaleeto dumar iyo waxyaabahaas mobilka gacanteeda intuu ka baxay oo qof kaleeto uu galay oo qof kaleeto idoo ku xumeenayo uu ka tirsadayna waa laga yaabaa taasi anaga ma dhihi karno 100% qadar waaye maxkamada la saaro laakiin qadar oo adiga hadee kugu soo cadaato 100% milyan mar diyus ayaa tahay hadee kugu soo cadaato taas waaye hadee kugu soo cadaatana waxaan ku dhahay Soomaali Maxamed oo dhan waa unsubscribe in lagu saaro subscribe iska daaye meel aad taagan tahayna in oo inqaabta la marsiinayo qof dumar qof ka xumeeyay mid ka daran in lagu marsiiyo waayo ma fahmaysaa laana xalaashaadi ayaad bixisay gabdhahana sideedaba ilaahay hana asturo wallahi markay dhahayso farxiyo kaba yare inay iska hadashaa loo maleeyaa dadka kaba yare waa iska hadashaa waxay doonto iska tiraadayaa kaba yare ma hadashee waxa waaye wanaga horeysaa ma fahantay markay ku dhaysan ninku qaba xataa sabir ha u dirina waale karaya bini aadan waay wax walba ka filo hada iyadoo la waalanin oo mirka la qabaa la dhahaya sabra leega dhigay website la sameeyo googlaha la geliyo anoo qaaban ninkeygiya ku aamina xalaasheedi yaa la aaminaya zamanka maanta jiro yaa la aamina subxaanallah waa yaabna anaga wallahi cid la aaminayo maryahan aan wadana inaa aamini weynaa ka baqaynaayo sas ka qaadno qabaaf ka qaadno marada ma kaamir noogu dhex xiran tahay ma naqaano ilaahay hana asturo walaa waa la yaabaya ilaahay hana asturo aakhir zamaan miya ma naqaano meel xaaladda si u socotaa kasi la'anahay anyway hadalka anaan igu dheereynaynin wiilkaasina waa maqlay oo quruxda qoyska wareysanayeen oo walaalo qaali halka iyagana ka salaamayo sideedaba markasta quruxda qoyska waxay la soo istaagaan wax ee hubaan oo cadeena ma sha Allah 100% waa dad qaali halkan ayaan iga salaamaya Maryan Cabdullaahi walaalahayga maxaa la dhahaa sabirkana maxamed buskud ayaa dhahay isagana qof been lagu yaqaan ma aha oo aan soo arkay uu dhahay isagana walaalka halkaas ka salaamaya waxaan wax jiro waaye oo sabirkan gabadha laga keenay laakiin wiilkan uu dhaaranaya oo wuxuu dhahay aniga igama suurtoodo waxaas qof mas'uul ayaa ahay waxaas wax u dhow igama suurtoodo marka ilaahay in baa garanayo labadan qof qalbiyadooda anaga kuma jirno waxay meel afkooda ka sheegan un baa xukmi karnaa iyo waxaan aragno itusi taabsiyana anaga anyway hadal iyo dhamaantiisa abaayo macaanay hadii soo baar
qof kula joogay fahimoy hadduu qof kula joogay oo taleefankaaga kaa qaatay mar haddaad social media caan ka noqotid waa inay attentionkaaga taagnaado attentionkaaga inuu badnaado waayo dad ayaa xumaantaada jecel war dad kuu qoslaayo oo guri kugula nool ama 24/7 kuu imaanayo oo agtaada jooga xumaantaada jecel oo rabaan inay xumaantaada baafiyaan oo rabaan yacni wax yaroo qalada inay mujtamaca kugu bahdilaan dharka hadday kaa siibi karaan way kaa siibayaan dadka qaarkooda iyagoo kula joogo ceeshkaaga cunayo ku wanaajinayo marka waxaa laga yaabaa qof saasa inuu guriga kugula joogo ama saaxiib aala tahay ama aad aamintay ninkii ku qabi jira ka sokaba qof kaleeto inuu waxaan kaa faafiyey way dhici kartaa bini aadan ayaa layahay marka intaa orodno keliya qadar dusha kama saari karno qadarna waxaa waaye haddii walaalow dib isku soo baar haddee adoo xanaaqsan waxaan uu kaa dhacay xataa 1,000,000 mar labaadaan ku dhahayaa mar saddexaadaan ku dhahaa 1,000 maraan ku dhahayaa waad qaldan tahay iska daa xaaskaaga gabar kaleeto hadda maanta nin shukaansi u taagan ayaa tahay oo naag ma qabtid waa shukaansanaysaa qof ayaa ku jeclaanayso gabdhaheena ma aqaani aada u qalbi jilicsannahay qalbiga xabxab maksaay bismillaahi I love you min jeceshaha isoo dirhay sabirkaaga war ninkan hadduu ku jecel yahay sabirkaaga qaaban video qaaban igala hadal adiga kuma usan dheheen gabarta oo ninkeeda qabo isagoo qaba naftirkeeda u direysana iska daaya ayaan dhihi lahaa ninkan muxuu qaba waa ii baahan tahay baby soo maaha meel foga kala joogteen xabiibi imaa tigid soo qaado wax kale ma kaa rabi xabadda canjeerada cunayaa jab ku siihaa jaba anigana cunayaa nolosha ku wada raaxaysana anden iska laabo ma fahmaysaa irsaaqada ilaaha bixiyo taleefon aan sawir kuu soo diray muxuu kuu taraaday wax uu kuu taraayo ma laha fahmaysaa adigana bini aadan ma tido waqti kasta 24/7 taleefonkaaga gacantaada kuma haasi kartid oo waa ilaalinaa ma dhihi kartid mar unoo qof aa ku kalsoontahay intuu kaa qaado waxaan kaa faafi karaa mar ma aha laba ma aha waa intaan taaganahayba oo aqli aan leenahayba waxaan arkaynaa gabar unbaa saan la yeelo gabar unbaa waxaa yeelan ilaahay horta hana asturo wixii oo dulmiya iyo ilaahay dad masaakiinta ha ka leexiyo gabdhaha oo daacadda fahimo abaayo adigana soo baar wixii kugu dhacay qofkii kaa faafiyey wixii kugu dhacay wax 100% xun waaye wax aan ka naxna waaye xala markaan daawaday aniga ilaa iyo maanta ma aqaani si aan ahaa aad iyo aad uga murgaayay abaayaday waxaan ku dhahayaa ilaaha kugu dhibdhaamo tan kaleeto waa sheegtay waxaad tiri aniga shalayna fahimadeedii ahay maantana fahimadeedii ahaana wax iga bedelmaayo ma lahan right taas waa runta kuwinteena ayaa shalayna ahayd maanta oo dilwaqti aan taaganahayna waa ahaanaysaa boqoradeeni fahmaysaa sabira sheegtay fiidiyooyo ma laga keena xataa boqorad ayaa tahay sharaf ayaa mujtamaca ku dhex leedahay marwe ayaad ahayd yacni ma tihid qof oo idab daran anyway haddee dhacday taasna weligeed ay lahayd adoo taashkaaga sharafta wadatid adduunkaa ka tagaysaa insha allah asxaabteeda qaaliga haddaan igu soo laabto waa walaashina iqtisaad oo nidhahayso janaalkayga haddaa ku cusubtahay soo dhawaaw gacmo furan qalbi nadiifa qalbi daacada qalbi weyn kusoo dhawaada hayehe isma dhaafin like-ta yaa layga baqiilin share iigu dadaala in badan ii share gareeya insha allah waxaan rajeynayaa inaan waxyaabo badan oo ni cajabiyo waxyaabo waxaan soo wadaa imagine aadan yacni dee aan la yaabaysan insha allah aan la yaabi doontiin ayaa nii soo wadaa biidni illah oo aad ka helaysiin insha allah hadday riwaayad tahay wax kasta aad jeceshiin insha allah falogyo waan isoo duubayaa gabdhaha iga soo dalbadeen oo abaayooyin falog soo duub falog waan soo duubaa meelo badan ayaa i jibtay insha allah qaahira ayaan ku noolahay ayaan iiga tusi doonaa insha allah aad ayaan ii jeclahay idinka horumarkiina ayaan u taaganahay wax walba aad jeceshihiin ayaan u taaganahay inaan niisoo tabiyo bartaan hayehe videoga intaan ka badan inuu dheeraado ma raabi I love you guys bye bye isma dhaafno